haddii aad rabto gurigaada inaad iska sii gado laakiin guri cusub inaad iibsato nidaamkee halkee loo marayaa maanta waxaan ka hadli doonaa processka maxaad u mari lahayd iyo waxaad samayn lahayd walaal soo dhow magacayga waxaa la yiraahdaa daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment haddii aad rabto gurigaada inaad iska sii gado ama guri cusub inaad iibsato insha Allah anaga rabto inaan ku caawiyo waxaad ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com haddii aad rabto real estate investment inaad barato ay kamid tahay buy and hold subject to wholesaling fix and flip إن شاء الله يقصوا بويبسايتكيغا sahaninvestor.com فضلا نسو فولو جري فيديو نعرف soo aragto real estate ah hadii aad rabto gurigaada inaad iska sii gado laakiin guri cusub inaad iibsato the first thing aad sameynayso waxay noqonaysaa you have to determine your equity oo ah equity-gaas oo ah basically haddii aad guri iibsatay maanta 300 kun aad iibsatay oo maanta maraya 400 kun marayo 100 kun u dhaxeeyo waxa loo yaqaan equity so equity-gaasi uu guriga ku sameeyay ma soo ogaan kartaa the first thing dadka qaar ay badanaa sameeyaan waa samayn karaan waxay kamid tahay waxa aadi kartaa Zillow waa aadi kartaa Realtor Redfin website-daasi wuxuu ku tusayaa guryaha qiimuhu maray laakiin xaqada dan ku sheego wada qaldan yihiin kulligood number qaldan ay meesha ku soo qoraan so haddii aad rabto si aan aniga kaaga caawiyo waxaan ku sameynaa wax loo yaqaan comparative market analysis oo aan ku tusayo gurigaada qiimihiisa exactly intuu ka joogo insha Allah soo qabo tan kale waxaas inaan samayso loo baahan yahay wax loo yaqaan waa inaad budget gareysaa gurigan lacagtaas equity waxaad u isticmaalaysaa lacagtaas inaad guriga kale wada geliso ma rabtaa ama qayb kamid inaad geliso ma rabtaa so taasi weyn aad soo gaataa step 2 waxa sameynaysa wax la yaqaan you have to get pre-approved or like pre-approval letter ina soo qaata mortgage lender ina aad waaye hadii aad lender garanaynin ama bangiga hore aad joogtay ba ku laaban kartaa daarto aad ka qaadatay ama bangi cusub aad kartaa qasamayna asaga aado hadii aad rabto inaad kugu xiro aniga anna way soo qaban kartaa hadii taas inaad samayso arrin bangi aado waxa isticmaali kartaa wax loo yaqaan bridge loan haddii maanta gurigaad iibsanayso gurigaada let's say wuxuu ahaad ku iibsatay for example kala insinaya 400 ku iibsatay wuxuu marayaa maanta wuxuu marayaa 600,000 marayaa 400,000 ku iibsatay so already gurigan 200,000 ku iibsatay the other guri waxa rabtaa inay iibsato 300,000 si deem aan waxba lagu yeelanin basically 100,000 u baahan tahay 100,000 ka cash ku haysto mashallah is good haddii kale loan waxa qaadan kartaa bridge loan oo dhaho oo ah ku meel gaar ah within 6 months to 12 months haddii lacagtaasi aad samayn karto aad ku bixin karto waa qaadan kartaa like usually bridge loan kan kuma anfaca usually waxa loo isticmaalaa construction kii howlahaas loo isticmaalaa so kuma anfaca like dadka qaar way isticmaalaan haddii aad ogtay lacagtina dib u bixin karto then number 3 you have to list your property gaadina suuqa gelisay noqonaysaa that's why ani meeshan ka caawin karo aniga ay soo qabanaysaa waan fadhiisanaynaa price waxaan ku sheegay guriga qiimaha suuqa ku joogo si gurigaada then process ka dhan ana ku fududeyn insha Allah so waan istigreynaa okay before waxay noqonaysaa hadana guri inaan ku raadiba adigoo gurigaada suuqa ku jiro baan guri ku sii raadinayaa si arinta ay kugu fududaato so waxaan noqonaysaa inaan guri soo raadino guri adiga aad ka hesho so qaabka haysta like Zillow everything ka fiirin kartaa dadku way soo gudbiyaan waxa kaloo systemka ku gelinaya MLS loo yaqaano multiple listing services aad arkayso guryaha suuqa coming soon-ka inta Zillow ay soo galin ka hor iyo guryaha la cancelay oo dhan baa arkaysa iyo guryaha off market-ka suuqa laga saaray oo dhan baan ku tusi karaa aniga so then haddii guri aad ka hesho the next step waxaan sameynaa we will write a price agreement and draft garanaya warqad ah we'll make an offer kaas oo ah basically ina gurigaada iibsanayso laakiin meeshan ayaa muhiim aad waa ina ogaato markii uu real estate agent la shaqeynayso kale it doesn't matter hadaan la shaqeyso kale qofka la shaqeynayso waa inuu ku daraa wax loo yaqaano addendum this addendum kaasi ah oo loo yaqaano addendum to purchase agreement sale of buyer property contingency oo ah shuruud in looga dhigayo gurigan inaad iibsan karin ilaa guriga kale iska sii gado waa must inaad samayso haddaa samaynin dhibaato kugu noqonaysaa aad iyo aad muhiim u tahay laakiin your real estate agent ayaa wuxuu samaynayaa coordination like asaga everything samaynaya laakiin this contingency clause kan aan ku sheegayo ayaa muhiim ah inaad samayso muhiim waa sababtoo gurigan haddii kale waa qofkii lahaa intuu iibsado hadduu qof kale iibsado wuu kaa saari karta anytime so warqadda marka la draft garanaya contractiga muhiima warqadda in lagu daraa so aad bay muhiim u tahay waxaa kaloo muhiim ah inaad la socoto closing timeline-ka waqtiga aad guriga la gabagabeynayo iyo waqtiga muhiim waa inaad ogaataa waay sababta gurigan aad ku jirto guriga hadda ay iibsanayso cusub ay iibsanayso iyo guriga kale la gabagabeynayo at the same time in la gabagabeyn karna isku dayda muhiim ah sababta kana kasii guurto kana u guurto so muhiim waa laakiin real estate agentiga howlahaas ka garanaya so the next thing haddii aad waqti fiican aad samaysataan or like at the same time close garaysaan ama within 1 week 2 weeks u dhaxayso that's no problem dhib ma laha laakiin at least waxaa la rabaa less than 1 month in u dhaxayso marka guriga gabagabayso kan kalena guriga kale asagana aad ku guurayso u dhaxayso at least 1 month but generally saasay sameeyaan laakiin haddii dhici wayso as long ninka buyerka ah guriga ka iibsanaya uu another ku siiyo another 2 month oo kale ku siin karo so
waxa loo yaqaan rent back contract. So waxa ka codsan kartaa ninka buyerka guriga iibsanayo inuu ka kireeyo another 2 months haddii arrinta ay kugu dhacdo lacala. Haddii kugu dhacdo that contract basically waxa ku draft garanaya ninka buyer agent ee kula shaqeynayo iyo seller agent same time both of them asaga isla ku draft garanaya kadib wuxuu u gudbinayaa ninka buyerka u gudbinaya buyerka haduu dhaho it's okay then you're good to go another 2 months lagu ogolaan in guriga ku noolaan karto. Waxa kaloo sameyn doonaan the last one waxay noqonaysaa waa closing and final walk through oo basically guriga kala soo arkaysa cusub aad tegaysay haddii aad isleedahay processkan uu kugu dheeraanayaa that's why aan ku sheegayo real estate agent ayaa ku fududeynaya. I know xoogaa it's a little confusing u egyahay in waxaan inuu isku dhex yaacsiin u eg tahay laakiin haddii process aniga I have a checklist inshallah that checklist iga codso waa ku soo diraya literally for free waa aniga waa bulshada inaan caawiyo ujeedadii waa taas laakiin this is muhiimad waxay tahay inaad markaa close garayso kadib you have to get ready inaad move garayso meesha kale aado. So this why mostly kula talay inaad like address kaada aad change garayso aad bedesho like address kaada or like bangiga kale for example insurance ta leedahay haddii aad utility-ga kuwa korontada kale inaad bedesho waxyaashan inaad bedeshay noqonaysaa. So that way by the time aad guriga xagga aad degto everything inay kugu soo wareega xagga kugu soo dhacaan. Drive license kaada hataa update garee waxa everything oo ID u baahan tahay update garee. That's it. Waa intaas. haddii aad rabto arrimahan guriga caawiyo waxay ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com. haddii aad rabto real estate investment aad barato ay ka mid tahay buy and hold subject to wholesaling fix and flip inshallah igu soo booqo website-kayga sahaninvestor.com. fadlan na soo follow grey video noocan kala soo aragto oo real estate ah.